السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري صاحب يال برتاسية توسكا قطعون صبرتني يوتيوب عاول فيشيال يبرتني فيسبوك عبد الساق محمد مركز كوريزي سمرت عادي توعن كاوسنا توضي وقال كان ملي قارسو يا بعدكم هنقيا صاحب يال مركز سودري دافيد يا ديود على ذاك جوجتان marka inta laga yimaado maanta ma xilliga sideetaa waxaan doonayaa dul istaago halka seed ka muuqanaysa ma halka agteeda ka aragtaan waxaan doonayaa ka hadlo laba arrin baan ka hadlan doonay saaxiibayaal koow waxa weeyaan inaan uga faa'iideysto dhinaca wanaagsan social media u leeyahay oo dhalinyarada Soomaaliyeed ku booriyo ama aan tuso dhinaca wanaagsan ee social media u leeyahay ma garanaysaa dadkeen aan fahansaneyn inaan koow dhinaca fahansiyo laba waxaan doonayaa saaxiibayaal inaan ka hadlo ma garanaysaa waxa maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada qabsaday Israa'iil oo saldhig ka dhiganaysa Somaliland ama Israa'iil oo saldhig ka samaysanaysa Somaliland labada arrin saaxiib waxaan doonayaa goorandina ka hadlay soo dhawaada muuqaalka si shargareeya meel dheer si gaarsiiya aad iyo aad ayaan saaxiib balad ku mahadnaqayaa markii inta laga yimaado maanta ama xilli kasta ku tahayba aan bilaaba ama aan ku bilaaba muuqaalkan maanta inoo wadee waxa maalmihii ugu dambeeyay ama barihii ugu dambeeyay ama toddobaadadii ugu dambeeyay in haystay ama baraha bulshada qabsaday ama baraha bulshada si aad iyo aad u haystay safarka inaan walaasheena oo lagu magacaabo ko dhowr jeer hore halkan kaga hadlay inantaas waxay ku sugan tahay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ee Soomaaliya ay ku sugan tahay halka wax ku soo dhaweeyay dad aad iyo aad u fara badan oo magaranaysa ay kamid ah magaranaysa dadka deegaanadaas taga ama dadka ay deegaan ahaan iyo ka soo jeedo ayaa aad iyo aad ugu soo dhaweeyay sida halkan uga jeedaan ama sida halkan ka wada aragtaan wax weyn muuqaal soo dhaweyna oo inantaa walaasheena dalka aan dhaahday Soomaaliya markay timi ay ka soo noqotay Malaysia ee loo sameeyay haddaba saaxiibayaal waxaad arkaysaa sida loo ilaalinayo sida dadku u jecel yihiin sida dadku soo dhaweynayaan sida loogu faraxsan yahay sida mas'uul iyo milgaba intaba magaranaysaa ay u danaynayaan inantaas inay la kulmaan ama inantaa muuqaal duubaan ama inantaa inay arkaan sida u danaynayaan oo saaxiibayaal waxa dareemaysaa madaxda dalkaas ama madaxda maamul goboleedkaas aan ilaahnay madaxda maamul goboleedkaas iyo mas'uuliyintoodu dhammaan inay danaynayaan inay la kulmaan oo barnaamijyada dhaxmarsadaan oo waxbarashada dhaxmarsadaan magaranaysaa inantaa dhalinyarada dalka dibadiisa ku soo baratay haddaba saaxiibayaal arinta ku dayashada mudan ama arinta magaranaysaa quruxda badan waxa weeyaan dhalinyaradeen bariyihii ugu dambeeyay ama intii u dambeysay social media sanadii ugu dambeeyay waxa jira wax la maag macnaha maag marka leexan ka wada waxa jira wax la yiraahdo hebel baan maag u qaadanaya hebel baan maag u qaadanaya macnaheedu waxa weeyaan hebel baan buud kula tubanaya reernimo ama qabiilnimo ama qabyaalad baana arintaas intii u dambeysay ay u badnayd oo magaranaysaa ay arintaas ay ahayd haddaba saaxiibayaal arinta isweydiinta mudan ama arinta ku dayashada mudan waxay tahay inantaa dhalinyarada u wada jeedna ee Soomaaliyeed halka muuqaalkeeda ka muuqanaya ama halka muuqaalkeeda ka wada aragtaan waxa weeyaan inan aan weligeed qof ku dhegdegin waxa weeyaan inan aan weligeed qof isqabsanin waxa weeyaan in ku dayasho ama tusaale mudan macnaha markaas waxaan ka wadaa qofka hadduu wanaag lagu barto wanaaggaas dadku ay ku jeclaan inta noloshiisa ka hadhayba balse laakiin haddii xumaan ku bartaan xumaantaas bay ka rabaan maalin walba marka waxaan doonayaa dhalinyarada social media ku jirta ee magaga soo qaata ee magaranaysa qabiilada isku balansada xataa waxa jira imika tusaale kale maalmihii ugu dambeeyay waxa bilaal bulshada haystay niman odayaal dhalinyaro nidan saaxiibka Nuur magaranaysa Nuuriya Media oo magaranaysa kamid ah Barkhad Nuuriye oo garanaysa dadka badanaa reer Laascaanood aad iyo aad u yaqaanaan ayo nin kale dhalinyaro soo la qalas hayba la yiraahdo ayaa isbalansanay macnaheedu waa inoo tukaraq waa inoo halkan kale waa inoo kulanaa waa inoo isdilaa macnaha iyagoo aan isdilka ahayn oo soo imanaynin oo iyagoo hadii doonaan deegaan wada joogaada ay fujisahan ka tahay dadka markii Ilaahay ku ogoleysiinayna waa sidoo kale waa inanta dhalinyarada oo kale si kastaba aad saaxiibayaal magaranaysaa inantaa dhalinyarada ahay waxa weeyaan inan ku dayasho mudan inantaa dhalinyarada waxa weeyaan wax badan oo qurux badan qabatay walaashi guuleysan lay hor u socon lahayd iyada iyo tiimkeeda iyo dhalinyarada xalad duba iyo walaalaheedu ka garab muuqda macnaha waxa sharafa ama waxa cisiya intaas oo dhan adoo soo dadaalay in walaalkaana ka garab muuqdo waalidka kugu faraxsan waxaad qabanaysid qurux iyo sharaf ka balaaran ama ka weyn haba yaraatee ma jirto halka wax kaga imanayaan inta dhalinyarada oo ku dayasho mudan oo la umada Soomaaliyeed ku social media isticmaala anigana Allah iga koowan ka ahaade macnaha anigu xitaa waa ku jira inaan ku dayano waayahay point labadan doonay saaxiib aan dul istaago wax weyn maalmihii ugu dambeysay halkan uga jeedaa masaalinka aragtaan ninka waxa la Soomaali cowboy ama waxa la yiraahdaa muwaadinkii gaaloobay
ama waxa la yiraahdaa muwaadinkii diinta dib ugu soo noqday labada arrin baynu oran karnaa waxa weeyaan ninkan dhalinyarada ahi waxa weeyaan nin dhalinyaro aad iyo aad uga faalaado siyaasadda Soomaalida ama siyaasadda dhulka Soomaalida Middle East-ga ama maalmihii ugu dambeeyay waxa aad iyo aad loo hadlayay Israa'iil waxna wada garasar Israa'iil waxa meeyna qofan maanta Israa'iil sheego inuu sharaxay inaan jirin waxaan arkay ninkan dhalinyarada ee walaalkeena oo aad iyo aad u hadalhaya saldhig ay Israa'iil ka samaysanayso Somaliland arintaas maxaa ka jira sidee wax u jiraan xog buuxda ama faahfaahin buuxda iyadoo aan laga helin haddana waxa maanta warbaahinta caalamka aad iyo aad u hadlayaan ama si aad iyo aad looga falanqoonaya ama si aad iyo aad loo tabinaya waan ilaahan loo tabinaya heshiiska wada galeen Somaliland iyo sidoo kale magaranayay heshiiska wada galeen Somaliland iyo Israa'iil inkasta oo aan anigu dhinacan ku farxsanayn anigu Somaliland macna aan ku farxsanayn waxaan ka wada Israa'iil waxa weeyaan wadan ma oran karnaa laakiin waa dad muslimiina gumaysanaya waa dad muslimiina dhibaateynaya ilaahna ka qabteen leenahay oo ilaahay waxaan uga ducaynaa inuu ilaahay uu ka qabto oo ilaahay magaranayay muslimkana qooyay gaaladan uu duleeyay inuu ilaahay ka codsanaa balse laakiin Somaliland iyo madaxdeedu waxaad mudaabarihii ugu dambeeyay inay ku dadaaliyeen meel kasta oo ay 30 sano kadib dalkooda iyo dadkooda ay ictiraaf uga keenin lahaayeen waan ku mahadsan yihiin waan ugu mahadcelinaa madaxdeena soo kale waxaan ugu soo foodlay doorashooyinkii xisbiyada iyo tiim madaxtinimada ayaan ugu soo foodlay inagoo dhexdhexaadka inagoo dhinac walba ka istaagina inagoo xisbiyadu ay inoo siman yihiin inagoo dalkeena iyo dadkeenaba jecel waxa la insha Allah bidilaahi karim ilaahay doorashada khayr iyo barako inagu gaarsiiyo aad iyo aadna waan idinku mahadnaqay saaxiibayaal saad noogu soo biirtaan saad nooga mid yihiin saad noola socotaan thank you so much baan idilaahay muuqaaladan insha Allah bidilaahi karim waxaan doonayaa inaan imika kale update ka dhigo oo magaranaysa hadda aan magaranaysa sidii hore u soo jeesto oo magaranaysa sidii hore wax soo galiyo YouTube-ka anigoo mashquulsan anigoo iska xaaladaysan oo magaranaysa hadda dhibaato iska jirta hadana ilaahay dhibaatada naga dulqaaday dhamaanteen hadda caafimaad ugu daawanaysa caafimaad qab Allah kuugu wado aad iyo aad baan saaxiibayaal isku mahadnaqay muuqaalka si sheergay ma leeyahay si gaarsiin halkan imkaan joogna hadda soo gaarina waad mahadsantahay thank you